السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha dunida dacaladeeda ku nool ee Soomaaliyeed waxaad iga barateen inaan siyaaso iyo waxaas ka hadlo laakiin maanta waa ka duwan tahay waxaan ka hadli jiray maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo facala khayr aniga waxaan tagay dalka Turkiga waxaan kula soo kulmay family oo dhibaataysan oo loo baahan yahay ilaahay wajigiisa in lagu kaalmeeyo filin ayaa aan ka soo duubnay markaan meesha tagnay filinka waxay ahayd inaan gudbino laakiin hadda waxaan jeclaaday inaan soo gudbiyo 10kii Ramadaan maadaama aan ku jirno dadkana ay jecel yihiin inay dadka walaalahooda ay kaalmeeyaan bishaan barakaysan oo ilaahay ajir ka siiyo waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo filinkaas daawada arka waa hooyo iyo labada cunugna waa laba cunug oo ayaga naftirkooda iska dhidhiman habarta naftirkeeda xabad ayaa ku dhacday isha iyo dhuunta iyo kulli waa isu duleelaan marka waxaa loo baahan yahay waxa waaye qof kastoo arko nambarkooda anaga dhimayna anaga noo soo dira mase meel hebel u dira waxay meesha shaashada waxaa ka muuqan doono nambarkaas ayadaa iskale waxaa idinka baryaynaa adduunka dacaladiisa cidda ku nool ha ahaato Maraykanka ha ahaato Canada ha ahaato Yurub ha ahaato Africa ha ahaato Turkiga dhexdiisa xataa waxaa idinka baryaynaa in familkaas la kaalmeeyo waxay degan yihiin hal qol halkaas qolne waxay ku haysaa laba cunug oo naftirkoodii iska ah laba cunug oo iska dhidhiman oo ay dhibaato ku qabto iyada naftirkeeda dhibaato ay qabtaa iyada hadalkeeda dhageysta markaa hadalkeeda maqashaan waxaa idinka baryaynaa in aad adresskaas ay leeyihiin familkaas adresskaas mase telephone numberkaas mase accountka oo aad ka arki doontaan ugu dira xataa nin wadaad ah ka hadlay waad arki doontaan iyo Cumar ayaa ka hadlay Cumar London mase Cumar Xalweysta loo yaqaanaa London waa laga yaqaanaa waa nin caan ah waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah muxsiniinta ah bishaan Ramadaan fadligeeda inay ku kaalmeeyaan familkaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال هاي هوي صوماليين واللي حروها فقو وضلت كنت بالهيكو الحمد لله لولا عمل إلى حال وصل أنا قل صومالي مقالي أحمد إقل عضي قفل عصاد هاي الحمد لله قول كمات وحسا مالا مالك عنقان إلى حال وصل عنقان إلى حال وصل هاي أنا قل وان حال وصل هاي مالك كنت أنتم لا المحسنين إقلون هالكان مالك فاولي وهنين إلا إسمقال من مجلسين وحر هاي إسمقال أقول بيقوم مهيكو مالك من الغيران المجلها وعالقل الحمد لله والله ينصر معي عاوية إلمان حنين صلاح كامل إسمقال مجلسين قمر أمهاي هوي القفصمول إواء المكالعان الله وصوت مرق صوالي عامي مرق كأنه كل عامل على مدة هذا عروت ما حكون على هوي عروت نوشة ما حكون على إنه جالس أصل هنا نقول هوني أصل ناش على إنسانية أو واحد إنسانية ممكن نقول هون اسم كان أيام جي وحلا مستحيل أيام إلها مرق صومال واحد لو ما قبل كانوا من ذا أكثر سنة أيام سايا هاي كان واقف عليه كان صار كل الله كذا مستحيل لا هذا لكن النار هو قوايا ممكن كذا مال وحاركوا هذا ما لها لكم هذا المنزل ولكم هذا ممكن الحمد لله كان يا كان ثاني يا لا فمن وحمل قال وهذا ممكن يا كنت كان حتى أنا الجرجار المحامي أنا حتى الجرجار أيام أباها قال وحال أباها ولا يروح يقطع منه صوم الملك فأنت كل أمثلك يا ولا لي ملك مالك ظروف أنت سوف يساعد هذا الشيء ولا يروح
إلى إسمطال مركز فقال من الجوجا إسمطال حكوا جينا إسمطال حكوا جينا من معرفة كل قناة والله من إسمطال حكوا جينا من كان طلع ير الله في إسمطال حكوا جينا فكر من مركز إسمطال يقولوا هالكل حملوا كذا قاطع هنا وهنا يا بقى والمسلمين يقولون بقيسنا يا بقى مسلمين يقولون بقيسنا يا إسمطال مجاني كان مجاني طبعا هنا لمجونا كل كذا لا يكون جونا يا ما أقوله الطوالي لك على الحمد لله تقدر إلهي كان ونمع إلهي كان ويكون لا طوالي يقرقار المهر إسمطال حتى على حيث على نار في وقع وحبنا ما كان يلعب وأكل أنت حبنا يلعب لما حلق على قبلنا لا أكل فامح إيها مركب نار في المية واحد في إسمطال الأولاد الصومال وصوت هو واحد وأكل صلاة الدين أيام قوى على الحال المية واحد على الحال إذن كلمه عنق قلقا ولحقوينا قلقا ويقول كسينا قلقا يقول حاينا فناك حتى من بحكم ما آل كلمة وحن فناك آل كلمة وعي هاينا من صنف الماسكة كنا آل فارر qaar ka mid ah muxsiniinta iyo culimadiinka Soomaaliyeed ayaa iyaguna baaq u diray ummadda Soomaaliyeed waxayna ka codsadeen in la garab istaago qoyskan Soomaaliyeed ee marxaladda adag ku jira. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى. إلهي وحولاه مسلمين وناقة اسكو كالمية. نبينا صلى الله عليه وسلم وحولاه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسلمين تو ميل والأدون كي كتشوغان لا إله إلا الله مرهدو قفكو يلاهدو وإسلام ماذا كو ولا لوبانا ما إسلام ما كل شو مسلمين تو ولاله وشركة غيب كم إذا فرطها أما عددا هذيك حنونته هبين كمسيحا كرتيد سيداسو إلهي كتل ما يددك مسلمين تا آيات القرآن كا iyo xadiidkaasi aad arkaysaan waxay hordhac u tahay dhibaatadu adduunyadu waa daarul imtixaan wal ibtilaa wal ikhtibaar adduunyadu waa meel la isku imtixaamo maanta adoo haddaad caafimaad qabto maanta hadday awlaadaadu caafimaad kugu haystaan maanta haddaad arsaaqadaad cunto haysato hadday hurdo macaan aad haysato in baan intaasoo dhan haysanin walaalayaal maantana waxaan erge ka ahay oon dadka muslimiinta ah doonayaa in aan ugu gacan haadiyo أنا إذا كجبرت بارنماذا ولا ليال الصوماليادو وحاجر تجبر الصوماليادو أنكرت دجان أو أد ورفعت سنون هانتي أيضا إيه علمه هذا إلهي بنا كربة في ذئه جبرنا وحاليا فرتون إبراهيم آدم حبط با إيش كجد عضي إلا إشي جودها إنتاج الشيء أي عنها سي مرتي أو إنت أصور يسود ليسي تاسي وحويان وأيضا أرينكو صاب سويه سيدو كلا لح عرورة إلى هذا هاي لح ذا اللبك كميدا وبرا الله يسوع ليال هدوا وحان إرجما تمر لبعض كنا هاي ولا ليال جبرنا سي مسلمة دا وحد كتري كرتان أو تكعوين كرتان هلا كوكرسون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة حولها جو مرنح صدقة منس قامين أيسو نبي يقول صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قف مسلم وقف كربة كفيدة إلهي با كربوين بضن مال انت قيامه يأدو يدبا كافيدي دونا مرك ولا ليال قبرنا مسلمات دا قعنتي إنه أسو تاقا شيبكي لنا قعنت أقلية من لا يرحم لا يرحم قف كان حريصا لو من حريصا أي نبي يري صلى الله عليه وآله وسلم وبالله التوفيق وحبا ما عارتين لك قفتان قف يعني نور جيري ودحيسو واي يعني حالد يكونوا شا والله قف مسلم قف سومالية قف يعني داون كرملها يعني ساوو قيرون إنسان مركز سومالوين غير لندن وهذا يقعد سنة ياي وهذه قانا أنا إيش قدي سفك ورك جرتان يعني صدقة غير لندن وحاسم إنساني قبل داس الله وح أقبل كرتان أكون أسمعيننا
akoonkaasna ii sheegay halkan ka arki doontaan yani cid walba reer walba inuu ii sheegay familiyada qoysaska reerood iyo caruurood dhibka haysta waa la socdaa 20 sano ku nool London inuu caruurtooda ilaahay ugu badbaadiyaa dhalinyaradana si fiican ula socdaa dhalinyaro aad u fiican oo sadaqa baxsato waaye sadaqada aad u jecel masaajida la dhisaya ceelal la qodaa wax walba safka hore kaga jiraan waa ogahay haddana inaad sii laba laabtaan gabadhan Fortune Ibrahim Aadan iyo labadood caruur Maxamed Maxamuud Aadan oo 8 jir ah ka kalena 6 jir way labadood way qalalaan yani rafaadkay ku jirto iyo dhibaataday ku jirto wallahi yani qof Soomaali oo u dul qaadan kara malaha Soomaaliyay hal isgarab istaaga inta sana isgarab taagneen waxa ku soo badbaadniba oo Ilaahay nagu badbaadiyay yani hiilada isku marka familkan xoog ha loogu soo hiiliyo waana ku mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.